وهجاك صاحب يال لح بقول لباتن يسديد الروح أيا لغا هلي عذرك جديعة قدهان دالكان مريكنك haddaba jadeeco ayaa waddanka ku faafaysa ilaa iyo 21 state oo dalkan Mareykanka ah. dadka ku nool qaarkood waxaa haleelay cudurkaas jadeecada. tirada guud ahaanna waa 628. gobolka Texas laba caruur oo midna 6 jir uu yahay midna 8 jir uu yahay ayaa cudurkaas u dhintay. waxaan rabaa waalidiinta Soomaaliyeed iyo qof walba Soomaali ah oo Mareykanka ku nool in fariintan ay gaarto oo aad la sii sheergareysaan oo ay ogaadaan si markaasi ay uga taxdiraan ilaaha wax dadka ka xijaabi kara, laakiin ay iska ogaadaan in waxaan ay jiraan taxadir badan ay sameeyaan ayaan doonaynaa. haddaba 21 state ayaa cudurkaasi laga helay. stateka ugu ballaaran ee cudurkaasi laga helay waa Texas. 422 case ayaana halkaa ka jirto. waxaa ku xiga stateka New Mexico la yiraahdo 48 case ayaa halkaasi laga soo sheegayaa. sidoo kale waxaa ku xiga Kansas oo 23 case halkaasi laga soo warinayo. gobolka Ohio anoo shaaciya ah ku noolna 17 case ayaa la soo wariyay. haddaba marka waxaa la doonayaa guud ahaan haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool taxadir inaan samayno oo aan aad u dhageysano fariimaha bahda caafimaadka ay hawada inoo soo marinayaan. sidoo kale haddii adiga ama caruurtaadii aad uga shakiso in si degdeg aad ula cararto xarunta kuugu dhow ee caafimaadka, muuqaalkanna asxaabtaadii la wadaag si ay fariinta u gaarto isla markaana ay taxadir u sameeyaan. waad ku mahadsan tahay daawashada Shaaciye One Show.